السلام عليكم ورحمة الله. كسر هذا جانك نسات تكنولوجيا. ما أنت مقال كأنك وحنا كسب سنة كورسين أو قندوة التحانة. تاسو أنا وجه الله إنه فيديو إديتين في أندرويد. هذا بقى وحنا كورسات كبرينا سيدا تقول إديتكرين لهاي مقال تلفون كاغا. برنامج كاستعماله إنه أبرينا لو حلو يقنا كاين ماستا. هذا بقى وام حي كاين ماستا. كاين ماستا هو برنامج كوكسر ريا اللي قوي إديتكريه مقال adoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta hadaba maxaan ku baranaynaa koorsatan intii ku guda jirno qaybayaalahan ku baranayna waxa kamid ah installation sida loo soo dejiyo interface wejiga hore ee KineMaster media layer maxay tahay shaqadooda transition sida laba muuqaal la isugu gudbiyo extraction audio sida looga saaro maqal muuqaalka sida looga saaro muuqaal maqalka cut and split jarid iyo kala jarid add text sida lagu soo daro qoraal animation sida lagu daro animation dhaqdhaqaaq volume audio sida loo siyaajo maqalka volumekiisa blur effect sida loo isticmaalo blur effect ayada blur effect waxa way adoo qarinaya qaybo kamid ah ama looga ama waxyaalo kamid ah muuqaalkaaga green screen sida waxyaalaha cagaaran loo isticmaalo green screen sida loo isticmaalo reverse kala rogid muuqaalka inaad kala rogtid sida inaad sameeyso in sarcaad oo kale speed sida aad u kordhin lahayd muuqaalka speedkiisa xawaarihiisa hadaba waxa laga codsan inaad ku soo biido channelkana Sat Technology daadan hore ugu soo biirin hadaad hore ugu jilina inaadan ka hilmaamin like share bartanka dhaa KineMaster waxaad ku dhufanaysaa Chrome-ka ayaa tagaysaa markaas oo ku cusubsan ayuu kugu soo baxayaa halkan basti ayaan ku oranayaa aniga copy buu ahaa laakiin adiga description-ka ayaan ku dhigayaa saan ayuu kugu soo baxayaa downline ayaad ku dhufanaysaa meesha downline aniga hore ugu downline garasna hadda downline armayo haddana waxaad ka dooranaysaa calaamadaas ayaa ku dhufanaysaa halkaas ayuu ku soo dhigayaa install halkaas ka oran karaa waxaan ugu gudagaleynaa qodobkiina labaad ee ahaa interface awal waxaan soo kacanaynaa KineMaster markaan soo kacna saan ayuu nagu soo baxay intaan ugu gudagalin interface halkan setting-ka ayaynu ka saxaynaa advanced ayaa ku dhufanaysaa meesha tan aniga onta ayaa waana on ku ahaataa si aad ugu export gareyso wax ka sareeya 30 hadaba halkan ayaynu furaynaa project-kan waxaad u jeedaan inuu inoo furmay KineMaster hadaba waxyaalaha halkan kaga muuqdo dhan ayaynu baranaynaa meesha u sareysa waa media waa maxay media waxa weey waa meesha kaliya aad ka soo galin kadib waxaad ka soo galin kadib awalan marka ugu horeysa background muuqaal sawir wax rabtaad ka soo galin kadib laaya waxay la shaqeysaa media ayaa la shaqeysaa waa waxba dul saari kara waxyaalaha aad media ka soo qaaday wax dul saari kara voice ayada waxbaad ku duubi karaa si direct ayaad cod ugu duubi karaa audio waxaad ka soo qaadi karaa cod kuugu jiray mobilkaaga ayaad soo qaadi karaa halkan keeni karaa batankan asagu wuxuu ka hadlayaa waxaad wadi karaa oo daari karaa waxyaalaha halkan ku edit gareynaysa hadaba dhanka kala u nimaado meeshan hooseysa ayada waxa weeye waa end point iyo starter point ay ku kala geynaysaa tan ayada waxaad ka balaarin karaa waxyaalaha kugu jira timeline-ka halkan ayaga waa setting kale aad ka sax kadib project-kaaga hadii halkan ay on wayna halkan on off ka dhigataa hadii on ku tahay si uu muuqaalkaaga ugu dhamaan cod daciif ah tan ayada waxaad ka qaadi karaa sawir ayaad kaga qaadi karaa xalaban midan kale ayada waxa weeye waxaad ka export garan karaa muuqaalkaagii tan waxa weeye hore u celisay waxyaalaha dib u celisay tan ayana waxaad u celin karaa dib ayaad waxyaalaha u celin karaa halkan ayadu weyn waxa weeye waa timeline-kaaga waxyaalaha edit gareynaysa ayaa kaaga soo muuqanaya